بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan idinku haynaa barnaamij taxana ah oo ku saabsan soo jireenka odayga taariikhda weyn leh ee aan isleeyahay waa ugu taariikh weyn yahay uguna daa weyn yahay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland odaygaasi oo ah Xaaji Cabdikariin Xuseen Yuusuf oo ku magac dheer Xaaji Cabdiwaraabe ayaan doonaynaa in aanu bal wax badan ka ogaano taariikh nololeedkiisii iyo noocyadii kala duwanaa ee ay dunidu isu soo rogaysay ilaa qarnigii uu soo jiray xaajigu waxa uu ku dhashay 1908 markay taariikhdu ahayd masallaha halkaas oo uu ka bilaabay noloshiisa geel raac ama geel jire masallaha oo ah goobta uu ku dhashay haatan waxa weeye gegida dayuuradaha Hargeysa haddaba waxa aan weydiinay xaajiga bal inuu nooga warramo intaasi kadib wixii uu qabtay kolka bacdigeeda waxaan qabtay kolkan 25 ku gaaray geel jire reer miyiga ayaan dibadda u baxay oon halkan ka dhoofnay Hargeysa saylac dooni ka raacno musawac baan tagnoon ka galay askar Talyaani halka muddo 5 sanadood baan halka ilaa arda sababa u qabsaday ogoladii xamar ka soo gashayna oo garashiyaani wato qolada xaggaana badooliya wato aanu ku kulanay arda sababa labadii col ayaanu soo joognay xilligaasaan ka soo kunjeeda qaatay oon ka shughulkii sii daayay kolkaasaan imi Hargeysa kolkaasaan walaalkay dhintay anigoo bil iyo 2 joogay 40ka 39 bishii u dambeysay baa walaalkay dhintay oo caaqil ahaa Nuur Xuseen kolkaasaa caaqilnimadii aniga laygu wareejay bishii u horreysay 40ka iyadoo 2 bilood iyo waxa aan hayay waa Talyaaniga haddana halkan soo galay ilaa intaa ka dambeysay wuxuun baan ahaa oday dee beeleedo oday caaqil baan ahaa xaaji haddii dib aan ugu noqono taariikhda qoyskiina imse qof baa ayaad la dhalatay anigu qoyskayaga hooyaday aniga hooyaday 14 bay dhashay 14 wuxuun baa ka tarmay 3 4 baan ku taranay 14 10kuna carruur ma yeelanin iyagoon carruur yeelan bay dhinteen inaan iyo 3 nin baanu wax dada ku yeelanay 14 ay hooyaday dhashay hay ahaana imika 14 anigu baa ka nool taranka iyagina waa badan yahay oo jira xaaji adigu imsa carruur ayaad yeelatay anigu carruurtii aan yeeshay waxay iyagu dhaleen ma ahaane midina 16 bay ii dhasho waatan imika aan guriganaynu joognaa 14 waxa ii dhashay xaajiyadii ka weynadu xaaji Faadimo Cusmaan Guuleed 2 habloodna waxa ii dhashay tii iigu horreysay walaalkay ka dhintay Xalwa Nuur Bidaa ayaa ii dhashay 3 dumaraan guursado intaas aan dhalay wixii ay dhaleenna waa badan yihiin xaaji markii aad ku soo noqotay Hargeysa ee aad ka soo noqoteen xagga iyo musawac iyo sababa iyo dhulka maxaa kugu horreeyay halkan aad ka qabatay qolkan caaqilnimada qabtay waxa fas caaqil ahaa jaambiirka ah iyo rag jira kolkii dambe ay soo baxday chiefnimadu loo atorotay jaambiirna lambar 1kii uu noqday aniguna lambar 2kii baan noqday kolkii jaambiir xijaabtay na aniga lambar 1kii soo galay intaa dee wuxuun baan ka shaqaynayay ilaa 60kii Ingiriisku tagay 20 sanadood chief caaqilnimadan ku shaqaynayay odaytinimada yaan ku shaqaynay xaaji Cabdikariin waqtiga aad ka sheekeynaysaa waqtigii Ingiriiska iyo isticmaalku uu dhulkeena joogay marka maxaad ka xasuusan tahay shaqooyinkii waqtiga aad qaban jirteen iyo waxyaabihii ugu doorka roonaa waxa u dooranaayeen qaban jiray labada beelood oo isdila
ama labada ninka nin dilaba dhexgalkoodaa u xoog roonaa oo muslax baanu ka talin jiray sidaan dagaalkaas u sii socon haddii geel la kala qaado geelaa inaannu celinno oo qoladii u celinno haddii faras la kala qaado inaannu celinno haddii naag la kala qaado inaannu dhex gallo oo inan la kala xaaji dhinaca kale bal haddii aan wax kaa weydiiyo cuqaashii waktigaa kula shaqayn jirtay maxaad ka xasuusan tahay iyana waxaan ka xusuusnay dee rag muddo kale ay ahaayeen waxaan ka xusuusnahay jaambiirka ahi oo caalamku aada u yaqiinay xaaji aadan cilmi qabille ree hargeyse xaaji xuseen warsamo weyd oomaar jaamac garaad goollo cali shabeel faarax samatar dee rag jawaabiro ah hargeysahaadu ahay burcana rag bay lahay xaaji jaamac axmed shire iyo faarax cabdi iyo oo suusla ku magac dheeraa jaamaca fuuranle iyo xaaji yuusuf burcana rag bay lahay xaaji raggaa faraha badan leh markaa tirinayso berberina rag bay lahaydoo yaasiin ilbir iyo cabdilaahi cayngal iyo haddii alla yidhaa caaqilyare iyo dee waa badnaa ragga mudakarka ahe waa badnaa jaamaca xaaji cilmi waa badnaa mudakar dee cuqaashaan xusuusnahay raggaa imika maxaa kasii nool xaaji ninna kama noolaa boorame waxay lahayd rag ninna kama noola maha dugsiye iyo u madax yihiin haa laascaanood xasan dayli iyo raggiisii ninna kama nin quri ahe ragga ah waxaa ka nool nin boorama jooga oo raggii caaqilnimada aanu haynay la yidhaaho jaamac maxamed booramuu ku nool yahay oo jilcayim oo oday laascaanoodna waxaa ku nool nin indhabeeladoo iminka fadhiya oo isagana jaamac la yidhaah berbere iyo burco iyo hargeyse iyo oday jiifo iminka oo cali xuseen cilmi la yidhaah cali waraabo la yidhaah oo 114 iminka jooga oon aqalka ka soo kicin ayaa ka nool hargeysana xaaji waxaa aada soo jirtay wakti dheer waxaanad la soo shaqaysay maamullo kala duwan oo xagga mabda ahaan iyo xagga diin ahaan iyo xagga maamul ahaanba aada ugu kala duwan marka maxaa aada is leedahay aada bay ugu kala duwanaayeen maamuladaasi shuma dhawoo dee midna mustacmar buu ahaa oo sharaf sidaasa kuumuu ogolayn mustacmar wax noqdo dawladda ingiriis baa wax mustacmarsada caddaan iyo madow dawladdaasaa ugu gobaysan in yar buu talyaaniguina haystado diiqi baa la gaadhay oo waa laga alla baryay ilaahay inuu inaga kaxeeyo ha ahaatee wax mustacmarahunbuu u wanaagsanaa wuxuu inoo qaban lahaana waxaa hor joogsaday hoggaan dhaqmeedkii hadduu suldaan ahaa iyo hadduu caaqil ahaa iyo hadduu sheekh ahaaba waddooyinka ha noo samayninaa la yidho way nagaga duulayaa oo ma lama ogolayn inuu waddo dheer dadka dhex mariyo jaamacadna inuu inoo sameeyo waa la diiday jaamacadda suudaan loo tago kharduun innaga inagu soo horrayso waa laigu gaalaynayaa baa la yidhi xaaj cabdi 1912 markay ahayd taariikhdu waxaa dagaalkii xaaraama cune ayaa bilaabmay balkaa waxoogay nooga taataaba qoysba qoys buu cunay dagaalka xaaraama cunaa bilaabmay kolkii dagaalkaa iyadoo la isku baaba'ay oo qoysba qoys cunay oo magaaladan hargeysa beeri taallo suldaan diiriya u booqorhaa dhexdeedii ay isdishay oy laba kala noqotay oon reerna reer bixinin oon la isu tallaabin ayaa ilaahay sheekh madar ka keenay adari oo xaaji faarax iyo cabdilaahi geelle oo xididay
oo qadiijo xaaji faaraxu cabdilaahi ilgeelle guursado halkaa cilmiga kaga soo dhigtay ayaa beeshii yimi oo yidhi sheekhii baanu suldaan diiriye garaadna waxaa u tegey xaaji faarax oo yidhi sheekhaasaan hayaa suldaan diiriye xasanna waxaa u yimi sheekh cabdilaahi geelle labadoo isu soo doga waxaa la yidhi ninkaa aan doona buu yidhi suldaan diiriye culimo badan baa doontay oonan magacyadoodii imika wadahay sheekh haarun ka mid yahay sheekh aadan ka mid yahay oo reer yuusuf maxamedi oo cumar aadan iyo yuusuf aadan iyo sheekhii dhalay oo cabdalla isxaaq ah culimadii baa keentay kolkay halkan keeneen oo dagaalka ka socda isagoo jooga dagaalka dhacay oo yimi ayuu yidhi waa idin ducaynayaa dagaalka joojiya intuu culimo badan isugu yeedhay dagaalkii baa joogsaday wixii dhintay waa dhinteen labadii beeloodba halkaa ku nabadsiiyey kolkuu labadaa nabadsiiyey buu beelihii kalena u tallaabay beeshii fadhiday dhaboolaq iyo xarafna kolkaasuu u tallaabay uu arabsiya ka dhigay xarun kolkaasuu barina u tallaabay uu culimadii u diray xaaxi meesha la yidhaabuu fadhiisiyey uu ka dhigay xarun culimo xaaxi dariiqo culimadii uu xaaxi dhigay bari ku faaftay culimadii uu dhigay ilayn baabuur ma jiro loo soconaya lug miidhanuuna sidan ammaan ma ahoo culimmadu ma soconayso culimmadii uu dhigay arabsiyaana galbeed ku faaftay nabaddii caam bay noqotay bari iyo galbeed reerreeruun beelbeel qoysqoys maahee beelbeel maahee tii dhexdeeda ahayd ee labada ilmaadeeri isdileen ee labada walaaliyo kala qaadeen ee xaaraama cuna noqotay way baktiday magaaladan hargeysana kolkaa beeyay ahayd beeyo kolka roobku joogana wax ka soo baxaan kolka aan roob jirinna engegto oo xarafna dhan looga arooro halladana dhan looga arooriyo aw barkhad leh waxaan intaa ku daraya haddaa ay yeeshaan dixdaasaan ilaahay inoo baryayaa biyo buu yidhi oo dixduu fadhiista qur-aankaa lagu dhammeeyey badan dixdii baa biyaheedii bad noqdeen nabadna kolkaasuu beelihii ka sameeyey iyadoo waababkaasa oon magaalo u dhoweyn oo berbere awr loogu safro ayaa gabooba ninka la yidhaahoo ka soo baxay bullaxaaroo halkaa dhamal afkiisuu geedka waaftay soortuu halkaa awr ku keenay baabuur ma jire halkaasaa lagaga soo qaataa geedka gabooba la yidhaahaa kolkaas imikaba dee geedku waa dhaqan yahay iyo meesha waa caam wax bedelmay ma aha haba la dego oo beero iyo dhul iyo waxaa laga otee waa geedka gabooba geedkaasaa timirta iyo sonkorta iyo waababkan lagu kariya iyadoon weli magaaloobin oo caynkaasa ayaa bullaxaar aasantay bacda 10 sannadood kolkaasaa raggii bullaxaar deganaa oo axmed iyo yoonis oo isku dilay xaaraamo cune berbera ree yoonis bullaxaar u baxay ayaa raggii bullaxaar ka soo baxay oo boqolaal awra la soo raray halkan raggii joogaa ka hor tegey cali dhooyar iyo gaameel cakuulle iyo suldaan cabdillaahigii soo dhowaaday iyo axmed cali cilmi iyo xaaji cali geelle iyo ragaa ka hor tegey oo wada abti iyo seedi iyo sodoga cali guhaad xaaji cali yoonis cabdi warsamo oo ildab ku magac dheer ismaaciil cali bariisle oo xiidi iyo walaal dee wadaa colaadiisa kala fogaysay ayaa shiisha guntigeeda 200 awr laga soo raray kolkay halkan degeen bay iyagaa bullaxaar iyo berbere iyo cadan iyo dhulka yiqiinay daaraha iyagaa yiqiinay halkan kolkaasay dergada ka bilaabeen dergadii bay dhoobo la mariyey oo gahaydhu iyo wax la saaray oo soortii iyo dharkii lagu qariyey kolkii hore dergadahaasay dhiseen
kolkay dergadahaa dhiseen ayay bacdigii kolkii soortii la asturay daaraha u baydheen kolkaasay daaraha dhiseen dadkan halkan kolkaa beesha deganay daaraha iyo waxaas u dhadhan maaha qorigaa iyo faraskaa iyo colkaa ama maxamed subeer waabinaya ama dadka ku duula ayaa u dhadhanad waxaa ma garanayaan waxaanay dhisayaan waa maxay baa la yidhi cawaalo sharmaarke ee ildabiyo isku hayaan sekad halkaas iyagoo isku qabtay cabdi warsame iyo cali guhaad waxau yidhi daar bay ka dhisayaan aryahaynu ku horan dan uga baxa buu yidhi adhiganaynu hori kari weyne sheekh madarna kolkaasaa xaaji cabdilaahi oo curadkiisii hibo suldaan diiriye loo dhisado halkaa iminka iskuulka laga dhisay labada iskuule kale hor jeeda ee midna cusub iyo midna horeba loo dhisay towradii dhistay labadaa iskuul halka laga dhisay baa hibo beertii xaaji cabdilaahi ahayd beertii xaaji cabdilaahi sheekh madar ahayd oo hibo ku aroostay halkaa dabe waxaa amnigii sidaasuu ku wanaagsanaaday magaalada beerahan iyo dee raggii ilbaxa ahaa ayaa sawda samaystay yahay bacdigii beeraha xaaji cali yoonis iyo haddii aan la yidhaa qaadi cabdilaahi iyo beeraha cabdi warsamo oo tii sudixda qarkeeda ahayd iyo beeraha iyo daaraha dee nimankaasaa dhisay oo magaalada magaaleeyey degaankuna wuxuu ahaa beeshaas loogu yimi ee isku dilaysay dhexdeeda ee suldaan diiriya u madax ahaa halkaasaa dalami ah kolkuu ingiriiskii baa dabadeed yimi 12 kolkuu dagaalka hore ka soo noqday kolkaasuu u dhiibay hubkii uu ka tegey dadku kaxaar ama ku kucuu ahaa kolkuu soo noqday buu yidhi wax istaabtaa ma jiro dagaalkii koobaad wax istaabtaa ma jiro dagaalkii koobaad weeye kolkaasaa inaa cabdilla xasan bilaabmay oo halkaa daadkii lagaga dhaqaaqay inaa cabdilla xasan oo awrta loo rartado oo askarta uu u qortado u adeegsaday ilan soomaaliya jabisay waktigaa taariikhdaa dheer baa la soo maray iyo wixii ay su-aalaysaan waxaad naga warantaa balxaaji abaarihii la odhan jiray adhigaba waktigee bay ku beegnayd qiyaastii waktigaa adhigaba 40 bay ahayd 40 ayay ahayd waxaan filayaa inay 40 ahayd halkee bay ka dhacday waxay ka dhacday daroor dhinaciisa magaalo adhigaba la yidhaaho halkaasaa kolkii hore dayrtu aada u heshay halkiibaa aada loo tagoo la degay halkiibaa la yidhiyeyna adhi aan laga guurin baraagiyo waxna ma jiraan dhanna ood weynaa ugu dhow dhanna hargeysaa ugu dhow halkiibaa lagu daayey beeshi jilaalkiina waa dheeraaday gugiina wuu dib dhacay kolkii dayrtiinu hagaagtay adhigaba halkaasaa la yidhaa adhigiibaa oonkiibaa beer kurus qaadadoo cudur ku qaaday isagoo shilshilis ayuu wada dhintay abaarta adhigaba waa taa weli waxaynu ku jirnaa bal dhinacii abaaraha gabato bal ka waran iyana abaartii la odhan jiray abaarta gabato waxay ahayd iyadoon la filaynin bay si xunoo jilaala u dhacday oo dayrwaa baa dhacay iyadoon lagu talagelin ilaan kayd maynu lahayn baraagina ma jirin ayay dhacday kolkaasaa dagaalkii labaadna dhacay kolkaasaa raashinkii go'ay gabato siday kula baxday halkaa waa lagu kululaaday waxaa ku xigay darxiile caydh laga qoro waddankeennan soomalilan waa ka u horreeyey oo bullaxaar la geeyey kolkii la geeyey bullaxaar iminka 70 baa ka dambeeyey amaba waa meelaha sannadood haddaanay 80kaba afka la gelin waxaa la geeyey bullaxaar caydhii kolkii uu gugi da-ayna waxaa soo baxay geeliyo waqooyi baa loo dhacay
geeli waqooyi soo baxayna maxamed sabeer baa bankaa ka qaado geela indha badana la yidhaahdo wixii ka soo baxay dhankaas galbeed oo dhan banka ayuu ka qaaday oo waa dirxiro oo abaarta ugu xumayd wuxuu marka xumaytii dhankan bari ka dhacdayee intii tawraduba joogtay loo raray gahayo yaa haddaba dheer baa ka dambaysay abaar xun oo 470kii taasaa iyaduna mid xunahay bacdigeedii waxaa lagu bilaabay baraagtaasaa dhulkii ha xaalufo hadda iminka dhulkii nabaad guur baraagta ingiriiska ma oggolayn in la badiyo kolkii iminka meel walba baraag iyo tuulo laga dhigay ee baabuurkii maray dhulkii ee biyihii taayarkii iyo waddadii raaceen iminka waa nabaad guur dhulkii biyihiina waa badan yihiin xoolihiina sidii waa ka yar yihiin abaar kasta ha ku dhacdee kolka xooluhu sanad iyo laba joogaan bay cirka mari jireen oo inanka dabadda ka yimaadaa iminka aqal buu dhistaa waagaa inanka dabadda ka yimaadaa ama qofka loo soo diraa lacag ama adhi ama geela ama lo' buu siisan jiray halkaasaa xooluhu ka fufi jireen iminka ninkii lacag loo soo diray meel dhula buu gelinayaa ama daar buu ku dhisaya ama dhul bannaan baabuu ku iibsanayaa waxoola nool iibinayo hadal haya arki maysid waa saasaa loo kala wakhtigii isbedelay oo dee ilaahay baa sheego 100kii sannadoodba qarni baan sameeyaa buuri qarniganu iminka xoolihii noolaa uma aloosna dhis bay u aloosan yihiin ama baraaga ka dhigeen ama beer ha ka dhigo ama daar ha ka dhigee dhulkiina baabuur baa wada maray iyo beer miidhan baa laga dhigay sidaasaa xoolihii baaba liitaan iminka xaaj cabdi taariikhdaada intii aada noolayd ma soo gaadhay maxamed cabdilla xasan oo dagaalamaya maxamed cabdilla xasan oo dagaalamayaan soo gaadhay oo awrta loo gurana reeraha looga qasbaayo kolkii awrta iyo geela loo sahadanayo iyo beesha laga kaxeeyaa ayaan soo gaadhay kolkii uu jabayna awrtii reerkii qoyskii 2 awr laga kaxeeyey awrkii iyo heeryadii awrkii dhintay way isla lumeen qowlkii awrkii u yimi kii heeryadu saarayd iyo yeelihii iyo u yimaadeenna 50 rubood baa ingiriiska siiyey awrkii isaga iyo yeeshii iyo heeryadii iyo xadhiggii isla lumeenna 100 rubood buu ka bixiyey waxaa lagu calaacalay maan awrtayda bixiyo kolkii horena awrta waa loo diiday kolkii dambana dee 100 rubood xoolo dhan bay qoyskii u geeyeen oo uu ku caydhgooyey oo xooluhu waa jabnaayeen oo lacagtu qaali bay ahayd dagaalkaasi sayid maxamed cabdilla xasan lagu qaaday yaa ka qayb qaadanayay dagaalkaa somalilan waad bay uga qayb qaadatay bahay tahayba aad bay uga qayb qaadatay ha u badnaado intii dhinacan xigtay ama garxajiska la yidhaaho ama barjeclo la yidhaaho ama dhulbahante la yidhaaho ama warsangari ninka keliya hee qiyaameeyeyna wuxuu ahaa maxamuud cali shire maxamuud cali shiruu la xidhiidoo shubato oo ina cali shire ah ayuu seedi u noqday kolkaas u tago wuxuu yidhi faraskaa xiinfinanisiiseed kolkuu ayaama ka aamusnaa ayuu yidhi waan tegayaa maxaad leedahay kolkaad xiinfiniin damacday baan kaa xanuunsaday soo dow xirgiga qaarkii waa lagu xujoobaayey kolkaad xiinfiniin damacday baan kaa xanuunsaday buuri kolse hadduu suldaan igu xillihi igaga xayndaabay xadhiggiisa qaba aadmi kale kuma xurmeeyeen kolkuu xiinfiniin siiyey buu yidhi waxaan doonayaa inaan beeshii faraskaa xiinfinanisiiseed kolkuu ayaama ka aamusnaa ayuu yidhi waan tegayaa maxaad leedahay kolkaad xiinfiniin damacday baan kaa xanuunsaday buuri soo dow xirgiga qaarkii waa lagu xujoobaayey kolkaad xiinfiniin damacday baan kaa xanuunsaday buuri kolse hadduu suldaan igu xillihi igaga xayndaabay xadhiggiisa qaba aadmi kale kuma xurmeeyeen kolkuu xiinfiniin siiyey buu yidhi waxaan doonayaa inaan beeshii soo raraa
waxaan doonayaa inaan beeshii soo raraa ee ciidanisi 40 farasoo xulay iyo 40 qori ayuu siiyey iyo 40 inay fuushana dadka hayla soo dhex mariyeen kolkuu beeshii keenay uu wiig sooriyeynayay ayuu qoryaa dhiga fardaana dhiga 10 ninba awr buu u raray oo hal hiliba ugu qalo u sheelay iyagoo qori sida buul 60 nin hareeraha ka geliyey kolkaa beeshooda joogtaan fardihiina soo fuula buuri ilaa qoladan waa luge halkaasuu u kaxeeyey intiibuu u geeyey kolkay beesha raadkeedii joogaan bay yidhaaheen nabadgelyo maxamuud cali shire maahe maxamuud cabdilla xasan nin qiyaameeyey ma yaallo waxaase bu xoog roonay xaaji waraabaa uu abbaanduulo ahaa colka jebiyey in axmed baxnaanoo reer burca ahoo reer caynaansho xirsiya ayaa u abbaanduulo ahaa colka jebiyey dhinaca kale haddii aynu eegno hogaamiye dhaqameedkii wakhtigaasi joogay raggii ugu magaca weynaa suldaan diiriye isaga maxaad ka xasuusan tahay xaaji suldaan diiriye xasan wuxuu ahaa nin madax oo boqornimada u qalma wuxuu ahaa dee wakhtigaa ninkii geesiya un baa la jeceliyey nin geesiya buu ahaa wuxuu ahaa nin dawladda ingiriis aan la heshiinin isaga iyo suldaan cabdilaahi midna dawladda ingiriis ma ku guda dhicinoo may la heshin suldaan cabdilaahina waanu ku collownayba waa lagu collownay cuqaashaydii jaambiir iyo aniga iyo xaaji xuseen warsame iyo xaaji aadan iyo cuqaashii kolkaa joogtay ee beeshan ahayd waanu ku collownay wuxuu yidhi kelideenaan kicin war miyaad waalinta kelidee kicin kari maynee soomaalidu haynala kacda suldaan diiriye nin magac dheer buu ahaa oo caama oo geesi ah oo beeshiisa u madaxa oo cimrigiisuna raago 130 buu ku dhintay suldaan diiriye iyo suldaan cabdilaahi mucaaradadii ay la galeen isticmaalkii gumaysigii ingiriiska waxaa la sheegaa in ay hor joogsadeen dadaallo uu ingiriisku doonayey inuu kaga hirgeliyo somalilan waxyaabo wax dhaxalgaloo dhinaca waxbarashada ayaa kuwa balka waxbarashada iskuulka kharduun tagayna suldaan diiriya hor joogsaday iyo culimadiisii oo yidhi waa laynagu gaalaynaya tacliinta dambena suldaan cabdilaahi baa yidhi iskuulka haddaan gebigiisaba laynaga daynayn wax meesha anigu aanu boqorhay la qori maayo inamadu u adeerka ahaa ka saaray waayo hadday iskuul bartaan gaalka ay noo soo jiidayaan fartiisa hadday bartaan buu yidhi suldaan cabdilaahi sidii waa kii la xidhay suldaan diiriye garaad iyo suldaan diiriye xasan ilma abti bay ahaayeen labada ilma abtiyaba sacadadiin baa la geeyey wayna cabdilla xasan bay wax la hayaan baa la yidhi suldaan cabdilaahina waa la xidhay kolkuu iskuulka dadka u diiday uu yidhi wax beeshaydii ihi iskuul geli maayaan uu inamadu u adeerahaa ka saaray wuxuu ninkaa farta bartay ingiriisku isku dhejinayaadoo soo saaraya aniga cuqaashi aniga iyo jaambiiryan u xugdila waaba nala fara saaray waa xaqiiq jaambiir iyo aniga iyo cali odayga noole cali xuseen waa raggii uu noo yeelu dila nimankan gaalka ogol waa nala fara saaray annana waxaan idhi war dadkaan kol la kacno oo iskuulka ha la galo oo marka wakhtigu yimaadaan kac isaguna saasuu uga taagnaado una heshiisu naqay dad waa la xidho mandheeraa la geeya suldaan cabdilaahi waxaad oga warantaa bal taariikhda geeda xaabeeye iyo geeda xaabeeya iyo taariikhda ay leedahay magacaasi sababta u baxay geed xaabeeya nin reer cabdilaaha xaabeeyo dhallin la siiyey xaabeeyo dhallin inan bay ahayd inan bay iyadoo inan ahoo qurux badan xaabeeyo dhallin ileeye oo reer hargeysa ah
reerka iyaga ah ayaa waa dhalinileeyo waa nicaanu kolkuu la siiye ninkaasu yarad badan ka keenay farda iyo geel iyo wax badan buu keenay isagoo geed xaabeeya 2 aqal looga dhisoo ku aroosa yaa ismaaciil amaan yimi wuxuu yidhi war nabadsii baa la yidhi beesha nabadsiiya beeshan garxajis dhexdeeda nabad ka samaysa ilma ammaanow xirsi iyo ismaaciil waa iyadaa aan nabad sameeye xaabeeye iga qaada ninkaas buu yidhi waa aroos ninkii oo 2 aqal baa dhisa oo midna wax loogu kariyo midna uu galo ninkiioo fardii hagaajinayaa ismaaciil ammaan aqalkii iska gala kolkaas soo noqday baa la yidhi aqalka nin baa ku jira ha geline fardahaagii midkaa fuuloo iska tag faraskii buu soo qabsaday shay ay leedahay gabadhu halaysiiya buu yidhi ama googoradda ama malqabadda malqabaddii baa la siiyey faraskiisi buu cidhibta ku dhuftay ismaaciil ammaan baa sidaa ku guursadoo geed xaabeeye sidaasuu ku baxay xaaj cabdi su-aal kale aan ku weydiiyo ninkii la odhan jiray ina igare ee turjubaanka u ahaa ingiriiska waxa uu lahaa sida aanu taariikhda ku hayno inan keliya inantaas oo la odhan jiray shankaroon waxaana guursaday suldaan cabdilaahi ilaahay u naxariistee taariikhda maxaad ka og tahay adiguse goobjoog ma ahayd waxaa guursaday horta inantaa shankaroonunbuu ah waxdada aynu ku aragn turjubaanna isagu waa ka sarreeyey nin dawladda hogaaminayo oo madaxa buu ahaayo isagu talagelyada iyo heeriguu watay kolkana isagaa berbere iyo daarahan hargeyse iyo isaga iyo niman reer nuux ismaaciila iyo cayuunbaa dhistoo reer magaal ahaa iyo niman cabdalle sacad la yidhaaho iyo toljecle 3 tol abdiraxmaan ayaa ilmaha dadka ahaa awal iyo garxajbu dadka kale iska reemiyibuu ahaa markaa waxaa guursaday inanta oo iyadoo ugubkeedii guursaday aniga reerkay dhalay cabdi dacar nin la yidhaahbaa kolkii hore guursaday cabdi dacar kolkay isdiideen oo isqabteen oo suldaanka iyo aniga iyo kulligayo waa reerkana dhalo ree axmed ayuu suldaan cabdilaahi oon suldaan ahayni caashaqay dhowr nin baa caashaqay waxay tidhi magacaa kale doora baa la yidhi raggaasoo waxay tidhi magacaanu xilanayaayna suldaan baan doonaya suldaan cabdilaahi baa kolkaa guursaday shankaroon sidaasuu kula xididay 25 caaqil ee reerka ciidagala la yidhaa lahaa 25 qori ha keeneen baa la yidhi 25 qori baa kolkaa kol qudha la geeyey caaqil weliba qori buu keenay xadhig xidhna meesha waa ku jiraa ila qorigii laga bixiyey anigaa soo qaaday anagoo sidanaa la soo qaadnoo la dhiibay aan goobjoog baan ka ahaa halka balliga imika ina igara la yidhaah ee kaamka ina igara imikaba la yidhaah salaxday buu sidaa bari ka xigaa ugu toosan yahay kala mar halka la yidhaah buu ka qoy halkaasaa lagu dhisoo lagu aroosa oo loogu dabaaldegay balliga ina igaraa la yidhaah kaamka magaciisuba waa kaa geelal badan iyo qoryo badan iyo wax badan buu dhaqo halkaa ciidagalahaana dhalo reer xaamud mataan baa dhalay oo geela iyo qoriga iyo faraskaba hayay suldaan cabdilaahina halkaasaa loogu aroosa wakaa taariikhda gaarka ah ee suldaan cabdilaahi oo aad sheegtay inaad goobjoog ahayd waqtigii uu guursaday shankaroon marka taariikhdiisa gaarka ah isaga bal maxaad ka xasuusan tahay taariikhdiisa gaarka ah wuxuu ahaa dee nin kolkaa dadku ninkii xabadda kolka layskala geesiya buu caam ku ahaa ina suldaan deeriyana wuu ahaa nin fiican buu ahaa nimaan makhaayad weligii kamana qadin kamana qaxway suldaan cabdilaahi nin nadiif ahoo cibaado badan buu ahaa nin kolka rag laysarkanay geesiya buu ahaa nin xukun adag buu ahaadoo sidii
towradda wuxuu xukuma oon xukunkiisa la soo laabin. xaaji suldaan cabdilaahi suldaan diiriye arooskiisii waxaad sheegtay 25ka caaqil ee beeshiisa inay keeneen 25 qori. waa maxay ujeeddadaasi? magac baa looga jeedaa. xaaji muuse igare nin xoolo uga baahan ma aha. waxaa looga jeedaa intaasoo qori baa laga keenay, beeshii baa u dhammaatay, magac baa looga jeedaa. magacu caam ha noqdaa looga jeedaa. markaa 25 qori ma waxaa milkiyey suldaan cabdilaahi suldaan diiriye? maya waxa suldaan cabdilaahi baa mulkiyadoo loo dhiibay. suldaan cabdilaahina inay xaaji muuse igare iyo guurtidiisii ayuu u dhiibay. qoryahaasi waktigaa aroosku uu dhacay aa guddoonsiiseen sudaanka noocay ahaayeen bal noo sheeg. nooc walba waa lahaayeen. qorigu maadhinafweyne la yidhaahbuu ahaa, qori maadhinyaro la yidhaahbuu ahaa, mid maaro la yidhaahbuu lahaa, mid jigro la yidhaahbuu lahaa, mid ingiriiskii midhmidh uu 12 qaad la yidhaaho godaal yimi buu lahaa, nooc hilqad buu lahaa. qorigu nimbo kii uu hayey ayuu keeno. sidan iminka baas muu jirin, qoriga 12 qaadaa ugu badnaa. dhinaca yaradka bal looga waran. yaradkii laga bixiyey wax ma ka xasuusan tahay? dee yaradka kaasoo ahaa geel lagama bixin, qoryahaasunbay lacagina ma jirin. qoriga waxaa loo badinayey geella uma baahna oo kiis uu baabaytima. lacagna maba jirto kolkaa dhulka. yaradku 25kaa qori ayuu ahaa laga bixi. arooskaas suldaan cabdilaahi waxaa la sheegay inay isugu yimaadeen dad aad u fara badan oo dhinacyo badan ka kala yimi. markaa xaaji cabdi dadkaas sidee baa loo sooriyeeyey? dadkaa waxaa loo sooriyeeyey geela dhalay 2 xero oo midba geelii lagu qiyaasay 40 uu yahay baa loo oodo la lisaay oo 7kaa joogo oo caanahooda halkaa caanuhu yar. meesha u dhowina awr bay soo roraysay caana ahoo meesha la furaayey. geela la qalayaana tiro ma lahayn. ama suldaan diiriya ha lahaado ama xaaji muuse igare ha lahaado, sooriyada halkaa geela lagu qalayaa tiro may lahayn. raashinka kale qaxwahan cidi kuma badsanayn. raashinka kale magaalada laga keenayo xaaji muusaa keenayey oo bariiska keenayey. subaga rag xoololahaabaa magac ka dadayo qumbayaal keenay. khayraha u aadan iyo saaxil bullaale iyo rag xoololahaa ayaa qumbayaal keenay. wananka iyo awrtaba waa la keenaya, beeshaa keenaysay. xaaji muuse igarena dee geel badan uu dhaqay, isaguna waa sooriyada geela waa qalaya, raashinkana magaaladuu ka keenay. lama tabaynin cunno. 100kii ninba awr goolaa loo qiyaasay. dadka isugu yimina tiro ma lahayn. wax la tirin karaya ma ahayn. eedma baal degaya ama meesha yimi oo tuulana ma jirin kaloo lagu baydhaa. magaaladan iyo sidana looma aqoono. dee reemiyi baa la wadahaa, bari iyo galbeedba waa laga yimi. haddaba xaaji cabdi intaa haddii aynu ka ogaanay taariikhdii suldaan cabdilaahi suldaan diiriye gaar ahaan arooskiisii shankaroon xaaji muuse, waxaanu bal ku weydiin lahaa war ma u haysaa imise ubaday ayay u yeelatay suldaan cabdilaahi shankaroon? shankaroon ubadka inamada 4 bay u dhashay. labuuni dadka yeesheen rashiid iyo suldaan cabdiraxmaan. hablahana labuun baa ka tarmay oo u yeelatay. suldaan rashiid iyo suldaan cabdiraxmaan. suldaan rashiid wuxuu ahaa ninkii sudaankii kala wareegay. suldaan cabdilaahi kala wareegay.
suldaan rashiidna waxaa kala wareegay suldaan cabdiraxmaan oo dhabeeye ku magac dheer suldaan dhabeeyena suldaan maxamedkan imika ayaa kala wareegay taariikhdu saasay isu taxnay saasay u soo taxnayd suldaan cabdilaahina suldaan diiriyuu kala wareegay haye suldaan diiriyana suldaan xasan buu kala wareegay suldaan xasanna suldaan faarax buu kala wareegay suldaan faaraxna suldaan guuleed buu kala wareegay suldaan guuleedna suldaan cabdi buu kala wareegay ciise waa qaybteennii labaad iyo barnaamij taariikheedkeenna taariikhda iyo soo jireenka xaaji cabdi xuseen yuusuf xaaji cabdi waraabe aanu ku waraysanaynay innaga oo halkii uun ka sii ambaqaadi doonna su-aalaha aanu xaajiga ku weydiinayna barnaamijkan ayaanu weydiinaynaa wakhtigaas xaaji oo xukunka geedka iyo xeerku uu xurmo fara badan lahaa waxaad nooga warantaa doorka suldaanka ee dhinaca hoggaanka iyo talada bismi illaahi raxmaani raxiim wuxuu ahaa suldaanku madaxweynaha ra-iisul jamhuurigu ka dhignaa sidaa sekretari buu lahaa suldaan waliba guurtidaasoo kale oo wasiiradaa ka dhiganna wuu lahaayoo guurtidu magaceedu sidaasoo u dhisnaa weligeedi dee wix imaka aynu bixinnay maaha waxa guurtidaasu beeshu kolka wax ka dhacaan ama faras ha la kala qaado ama qudhubaha ku kala goodo ama naag ha la kala qaado ama guryo walkay wax ku yimaadaan baa laysu iman jiro kolkaasaa guurtidu bixi jirta labadii arrin la dhex galayay kolka labadaa qole arrinka laga mulkiyaabaa odayaashaa dhexe guurtidiihii waxay soo gooyaan bay suldaanka ula iman jireen suldaano waxaasaanu garannay labadaa reer inaannu ku kala xukunno baa la odhan jiray xukunkaasuu suldaanku ama halkaasuu dalab ka leeya halkaa balilo ka eega odhan jira ama wuu ku raaci jiro wuxuu odhan jiray sidaa bahina waa xeertay boqorna waa ku guddoonshay baa halkaa ka iman jirtay waxaad noo sheegtaa bal hay-adaha kale ee suldaanka kasukow oo suldaanka aad ku tilmaantay inuu ahaa hay-addii ugu sarraysay ee maamul ee wakhtigaas hay-adaha kale ee ku xigay suldaanka ee kaabayaasha u ahaa bal nooga warran kaabayaashu dee waa kuwa arrinka soo goynaya oo u baahanaya suldaanku arrinka uma baxo oo isagu ma soo xukumo waa ma soo bilaabayo suldaanku oo sidaa iyo sidaas iyo oo ma baano waxa beesha labadaa reer baanay ee gartoodii la qaaday waxay gartaan baa guurtidaa dhexe la imanaysay oo kaabayaashu soo guddoominayay boqorkuna ku guddoominayo saase ku dhammay waa badnaayeenoo dee wax inuu ku xukuman ma aha kolba qarniga jooga iyo kolba ragga jooga weeye xaaji raqibo waa raggeedaa layidho maalinba ragga meesha jooga guurtidiisaa baxaysa xaaji isticmaalkii ingiriiska oo aada u xeel dheeraa miyaanu isku dayin in tanaasulaad iyo khiyaamo uu la isticmaalo salaadiintii wakhtigaas iyaga oo doonaya in ay marin habaabiyaan inay taladooda raacaan baa la doonay iyadoo dhibaata dhacday oo dhulka ka dhacday oon dawlad jirin oo la culays cunay oo masiibooyin badan ee soomaalida dhexdeeda ka dhaceen baa dawladdan ingiriis gacantay nagu qabatay oo masar suldaan ruun ka soo horreeyey oo uu muddo yar joogay bilo uu tegey oo masar ka soo horraysay xamili weyday uu tegey ingiriis buu soo ka biimeeyey oo xaaji muuse igari hor qaadayo isaguna kolkuu qadar joogay ee maxamed cabdilla xasan ku kacay buu dhoofay wuxuu hub qori dharaartaa sitayna wuu inooga tego waa kaxaaraama cuna ka kace laysku cunay kolkaas sulaadiinta iyaga inuu xukunka kala wareego iyo ninkii hayaba ayuu ingiriiska ku shaqeeyey waa ka suldaan nuurna ina cabdilla xasan raacay suldaan diriyana weligiiba waa diidanaa sulaadiintii kolkaa joogtay suldaan diriye ma badnayne suldaan diriye garaadna ilaa jigjiga oo etoobiya ah ilaa berberu u boqor ahaa markaasuu isaguna halkaa ka gardiid ahaadoo kor unbay arkayeen
oo may iswaafaqin sulaadiinta iyo ingiriisku waxay iskaga dhowaayeen cuqaasha isaguna dadka ingiriisku nin si xun u gacan geliyey ma ahayn mustacmar dushaa ka ilaaliyuu ahaa nin amar weynaado oo sidaa suldaan diiriye maahaane nin dabeecadiisu dadka soo dhowaynaysaabay hay oo labada qole isdila uunbuu kala qabanayay wuxuu u sameeyey koor caaqil 5 caaqil iyo karaani wuxuu u sameeyey diintana qaadiyal qudaar iyo qaadiyaal ka hooseeya wuxuu u sameeyey bilays kala celiyo dadka oo filfoos la yidhaah iyo bilays kale oo kala soocano suuqa wuxuu u sameeyey ilaalo kiisaska ka soo qabata kolka qolo koor caaqilku ku xukumo wax kiiska qolada hore u keeni weeye ilaalo loo diro oo ka soo goysa ayuu u sameeyey wuxuu ahaa mustacmar sharaf labuu ahaa oo dusha uuna naga ilaaliya wakaa waqtigaa aad ka sheekaysay xaaji cabdi waa waqti aada u fog sida muuqatana salaadiintu way koobnayd markaa tusaale ahaan aad usoo qaadatay suldaan diiriye garaad oo ilaa jigjiga ilaa berbera aad tidhi wuxuu ahaa suldaanka u suldaana markaa salaadiinta waqtigaasi jirtay wax ma nooga sheegi kartaa intay ahayd iyo intay ahayd waaba la wada garanayaa bari maxamuud cali shire ayaa soomaaliliin u baalleeyey jaamac garaadna laascaanood iyo halkaa la yidhaahaa buu ahaa halkaasoo labadaasay ahayd suldaan maxamed galaad baa beri dhoweyd buu ahaay labadaasu bilow halkaasay ahaayeen halkanna waxaa ahaa suldaan nuurna wuxuu ahaa burco oo in cabdilla xasan buu raaco dabeed suldaan madar baa halkii laga dhigay halkanna suldaan diiriye garaad suldaan diiriye xasan buu ahaa dhinacaas wixii la degan iyo sugaar awal sheegtana suldaan diiriye garaad buu ahaa booramana ree ugaas nimanka la yidhaaho ayuu ahaayo ugaas buu ahaa oo ree boorama saydacna waa lahaydoo boqor aanan iminka magaciisii haynin oo dhintay bay lahay boqorradu raggaa tirsanee kooban bay ahaayeen ee meel nin waliba geedku sidan iminka may ahayn xaaji cabdi ina cabdulla xasan ka bacdi gobonnimada u dirirkeeda iyo tacliinta yaa hogaaminayay oo soo ambaqaaday ina cabdulla xasan ka dambow aasaaska gobonnimada faarax oomaar baa lahaa oo mutacalim kala yimi cadan iyo xaggaa kolkaasay ingiriiska isqabteen u yihi ninkanu dadku kicinayaa kolkaasaa la xidhay kolkuu muddo xidhnaa baa la soo daayey gasiirad la geeyey kolkaasuu yidhi isagoo nin weyn noqday waxaa kaakiciyey raggii madaxda ahaa suldaan cabdilaahi iyo suldaan diiriye garsulaadiintu kolkaa way cuslaayeen suldaan qaadi ibraahim sheekh madar iyo xaaji cali guhaad iyo xaaji cabdi warsame iyo xaaji aadan cilmi qabille xaaji xuseen warsame caydiid qolqolka madoobe rag ragahoo magaaladan joogay jaambiirka ahin ayuu shiriyey wuxuu yidhi nin baa mushtar ahaa iyo nin caaqil ahaa iyo nin suldaan haaba war meelaynu isugu nimaadno ku shiro ha la sameeyo oo maxaynu nidhaa khayriye dhaha buu yidhi oo sidaa idinku fasaxa kaga soo qaada dhiisayga iyo barasaabka sidii baa lagaga soo qaada oo layidhi saab waxaanu doonaynaa khayriyo aanu wixii istiila ku kala qabanno oonu ku shiro inaanu dhisanna sidiibuu khayriyada lagu soo qaaday ta burca ugu horraysay wax la dhiso tan hargeysana waa ku xigtay ta berberana waa ku xigtay saddexdaa magaalo ayaa laga dhisay khayriyadii oo faarax oomaar asaasay kolkay muddo joogtay ay khayriye ahayd baa loo rogay jamciyad oo maxaa magac SNL loo rogay
SNL baa loo rogay SNL buu kolkuu arkay inay xoogaysatay oo aada la isugu afgartay ayuu la dhex galadoo siyaasadoo rag uu kaxaystoo la yidhi awaliyana mid ka dhiga ismaaciiliyana mid ka dhiga sabaroonna mid ka dhiga oo la kala wada kacay haddana gadaal baa la ysku soo noqdoo la fahmay wax halkaa dawladnimada asaaskeeda ina cabdilla xasan dabadeed suldaan cabdilaahina waa ku kaabadoo colaaduu ku kaabay oo uu diidanaa ingiriiska oo suldaan cabdilaahi buu la saaxiib ahaa faarax oomar oo yidhi iskuullada ha gelina ninka iskuulka galaa wuxuu raacayaa dawladda waa layna gaalaynayaa faarax oomar baa asaaska lahaa ninku raacayba suldaan cabdilaahina taageeraha ugu weyn buu ahaa ee dadka kiciyey xaaji cabdi waxaan ku weydiin lahay oo kale sheekh bashiir ninkii la odhan jiray sheekh bashiir taariikhda xoog buu ugu jiraa xagga waxbarashada iyo halgankaba bal ninkaana nooga taataa sheekh bashiirna geesinimaduu muujiyey sida qoladan imika miinada isku soo xidha intuu buurta galaduun ama meelahaasun kamuu hadhadline duhur buu burco soo abbaaray isagoo col yar wata geesinimuu muujiyey isagoo suuqu ka dagaalamay isagoo hobsitaa kolkaasaa la arkay in soomaalidu u diyaar tahay inay dawladnimo qaadato soo xaaji cabdikariin waxaa kale oo aan ku weydiin lahaa dagaalkii labaad waktigii uu socday waxaa jirtay in ciidan askar reer somalilan ah laga qaaday dhulkeenna oo la geeyey waddanka kenya magaalada mombasa oo ingiriisku halkaa uu geeyey marka ciidankaas waxaa la sheegaa inay diideen hugii dareyskii iyo cuntadii ay afrikaanku cunayeen bal arrintaa maxaad ka ogsoon tahay waa la soo celiyeyba oo waa jirtay ciidanku uu badnaa soomaaliyeedda la qaaday ee barma iyo dagaalkaa labaad ka dagaalamay wax ku dhintay oo wax ka soo noqdayba intii nairobi iyo dhinacaa la mariyey baa dirayskii qoorta go'naa diiday iyo raashinkii la siinayadoo magac muxuu ahaa u sheegeenoo ongadaa garan waayey halkaasaa la isku afgaran waayey halkaasaa laga soo celiyoo la keenay batalyanka ah oo ciidankaas ingiriisku miyaanu u arkin mar hadday ciidan ahaayeen ciidamadiisa askar ah inay awaamiirtii fulin waayeen ama ay kibirsan yihiin miyaanu u arkin u aragyo de waa haddana ku inta raacday tagtayba ka badnaydoo waa xurmanayo ingiriisku sidaa gumaysigii wax dilay ma ahayn ikhtiyaarka nin dadka ka wada xayuubiyey ma ahayn kolkuu arkay inay dirayskiina diideen raashinkiina diideen buu soo celiyey